وبرنامجكeenii falaqaynta qodob ka mid ah warka caalamka saddexdii maalmoodba qodobkeena maanta wuxuu noqonayaa YouTube announced Tuesday it suspended US President Donald Trump's channel. waxay joojisay kanaalka Donald Trump. Mr. Trump waxa hore loogu joojiyay Facebook iyo Instagram kadib rabshadihii usbuucii la soo dhaafay ka dhacay caasimadda Hill ee aqalka Koongareeska Mareykanka. Ilaa ugu yaraan loo wareejinayo xukunka Joe Biden 20 Janaayo. Google ayaa sheegtay in Mr. Trump uu weli wajihi karo in la xiro boggiisa haddii uu ku dhaco khiyaanadiisa siyaasadeeda saxda ah. dib u eegis kadib anagoo tixgelinayna walaaca laga qabo suurtagalnimada rabshadaha socda. Waxaan ka saarnay waxyaabo cusub oo lagu soo rogay kanaalka Trump ee ku xadgudbaya siyaasadaha yaga ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay. Hadda waxay sameysay shaqo joojintii ugu horeysay waxaana si ku meel gaar ah looga hor joogsaday inuu soo geliyo waxyaabo cusub ugu yaraan 7 maalmood iyadoo la tixgelinayo walwalka socda ee ku saabsan rabshadaha. Waxaana sidoo kale si aan dhammaad lahayn u carqaladayn doonaa faalooyinka ku saabsan kanaalka madaxweyne Trump sidii aan ku sameynay kanaalo kale halkaas oo ay jiraan arrimo xagga nabadgelyada oo laga helo qaybta faalooyinka. YouTube-ka ayaa noqonaya baraha bulshada ee ugu dambeeyay ee shaqada ka joojiya madaxweyne Trump. adeega ay iska leedahay Google ayaa ka hor istaagay akoonkiisu inuu soo rogo fiideo cusub ama agab toos u tabinaya ugu yaraan 7 maalmood wuxuuna sheegay inay kordhin karaan muddadaas.